daawadayaal halka aan sida tooska idinka soo hadlayno waa barxadda Mawlaca Jaamacadda Sheekh Daawud Culusow ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho galabta halkan waxaa ka socdo banaabax lagu xusayo Allah u naxariistay caalimkii Soomaaliyeed Sheekh Daawud Culusow Cubayd hal qarni ayaa laga joogaa geeridii Allah u naxariistay Sheekh Daawud Culusow Cubayd oo kamid ahaa culimadii kaalinta weyn ka qaatay faafinta diinta Islaamka dhulka Soomaalida degto ee bariga Afrika tabayaaqadii qarnigii 19aad iyo horaantii qarnigii 20aad ربنا ارحم شيخنا داود حاوي الكرم أرجو بيا لله يا ربي رضاك والنعم كان عفيفا صالحا برا فلي sanad walba xilligan oo kale ayaa lagu qabtaa daafaha caalamka siyaarooyinka shiiqa iyadoo isbuuci aynu soo dhaafnay khidmooyinka siyaarada ka socdeen meelo kala duwan ee caalamka ah haddaba banaabaxa galabta oo aan qayb ka ahayn ayaa waxaa ka soo qayb kale kumanaan isugu jira xer iyo culimo diin caan ah oo uu ka mid yahay sheekha caalimka ee Soomaaliyeed Sheekh Cusmaan Sheekh Cumar Sheekh Daawud oo ka mid ah awlaadda sheekha Sheekh Daawud Culusow Allah ka thawaabiyo inta siyaartay isugu timid dambigoodii Allah dhaafo انت قلبك كجعلت اون ايمان دنبغودي الله dhaafo muraadkeeno dhan Allah sahlo wadanka Allah noo dejiyo inta uu socday banaabaxa ayaa waxaan la hadalnay qaar kamid ah culimada diinka jamaacada sheekha iyagoo nooga sheekeeyay taariikhda sheekha iyo dadaaladii uu ku bixiyay qodmeynta diinta Islaamka ziyaartani waxa meeshan maaragtaa isku imaadkan ama digrigan وزيارتي الشيخ داود علوسو عبيد شيخ زيارتاني waxay soo bilaabatay oo sheekhu geeriyooday markii taariikhda hijrigu ay ahayd 1342 hadeertana waxa la joogaa 1400 iyo maaragtaa 42 la joogaa waa ziyaartii marka boqolaad ama 101 ay noqonay ilaa xilligaas ay soo socotay hadii aan wax yar ugu noqdo sheekh Daawud Culusow عبيد وحواي شيخ ماركتاه كمدها تلاميذي أما أرضي سيدي شيخ عالم ماية ماركتاه مركو إلى ماركتاه مركز شيخ فصحية وحكول لابتي دول كاس ديجان كاس وماركتاه اللي يراد على أما مريك وكترسان قبل كالجدود بريق قبل كالجدود أي ماشى سكوت الله ماشى سو شيخ كدوجين هاي مريق وكدوجين هاي تاريخ ذا أنصار شيخ يو دنتيو ماركتاه كون أفر بقول iyo 42 marka ziyaaradan waxay noqonaysaa ziyaartii boqolaad ay noqonaysaa oo maaragtaa sanadkan insha Allah taala marka waxa waaye sanad la arkaba xilligan oo kale markii la gaaro yaa sheekha la ziyaarta ahbaabta iyo maaragtaa talaamiida iyo xarta isugu yimaadaan waxa hogaamiyaha jamaacada maaragtaa Sheekh Daawud ayaa sameeyay ziyaarta oo hogaaminayo sheekhayna jaliilka ah Sheekh Ismaan Xidig oo hadda maaragtaa ma sha Allah ka duceynayay maanta waxaan joognaa ziyaaradii boqolaad oo lagu xasuusanayo caalimkii weynaa Sheekh Daawud Culusow Cubayd oo kamid ah culimada Soomaaliyeed oo diinta u soo khidmaysay oo waqtigoodii ku bixisay faafinta diinta sheekha wuxuu dhintay taariikhda hijriyadu markay ahayd 1342 wuxuuna ku aasan yahay meesha la yiraahdo Mareeg oo ku taala xeebta badweynta Hindiya gobolka Galguduud una dhow degmada la yiraahdo Ceeleer sheekha asadan yara ayaa Ilaahay ku ilhaamiyay inuu diinta barto wuxuu ka soo tagay dhulkii uu deganay ilaa markii dambe uu soo gaaro magaalada la yiraahdo Marka oo ah xarunta gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo kula kulmay caalimkii weynaay Sheekh Cali Maye oo uu ka bartay cilmiga diinta oo ka qaatay dariiqada Ahmadiyada sheekhu marka rixla qaaratay 10 sano ka bacdi ayuu wuxuu dib ugu laabtay dhulkii uu ka yimiday halkaas oo ka bilaabay inuu baro dadka diinta in uu yaani faafiyo sheekhu marka waqti yaani ilaa 23 sano ayuu wuxuu ku bixiyay fidinta diinta islaamka iyo dadka la baro diinta jahliga la dagaalamo
sheekha guul weyn ayuu ka gaaray risaaladiisii wuxuuna dhintay sida haddaba aan soo sheegnay 1342 haddana jamaacadii sheekh uu aasaasay waxay ka mid tahay jamaacooyinka kaalinta weyn ku leh fidinta diinta islaamka meelo fara badan oo ka mid ah Soomaaliya marka khayr allaha siiyo waa ziyaaradii labaad oo sanadan loo dhigayo sheekha ramadaankana waa la ziyaartaa bisha soonfurkana waa la ziyaartaa maanta waxaan joognaa ziyaaradii sheekhayna weynaa sheekh daawuud culusow cubayd sheekhaasoo ka mid ah a'immada islaamka xaqiiqatan qarniyadii ugu dambeeyeyna diinta islaamka fidinteeda qayb weyn ka qaatay aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo oo maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu makaniyo waad aragtaan waxaa khalqi iskugu yimid qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa u khidmeeya diintiisa ka shaqeeya diinta waqti geliyana ilaahay subxaanahu wa tacaala in cizi iyo sharaf uu siinaya halkaan nooga muuqanaysa aad iyo aadaan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka ziyaarada sheekha ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaantayn dembigayna ha inoogu wada dhaafo ikhwaani marka risaalada halkaan ka diraya waxay tahay qof kastoo diintan khidmaddeeda iyo juhdigeeda ka qayb qaataahi cizigan iyo sharafkan iyo wanaaggan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka reebi doonaa asar wanaagsan ayuu ilaahay ka reebayaa marka ilaahay ha nagu daro kuwii diintan barashadeeda iyo ku camalfalkeeda iyo nashrinteedaba runtii si weyn ugu qayb qaata marka dhammaan walaalaha ka soo qayb galna waan salaamayaa inta inay ka soo qayb gashaneysatay laakiin ay u saamixi weysayna ayagana waan salaamayaa marka dhammaanna waa mahadsantihiin waxaan aad iyo aad maaragtaahay aan ugu nuuxnuuxsan lahaa khayraadka noocan oo kale waa inay noo bataan waa inay noo kordhaan maxaa yeelay ummadda islaamka ah cizigeedu wuxuu ku jiraa shicaarka markasuu shicaarkeedu muuqdo yacni cizi iyo sharaf baa imaanaya haddii alla idmo caawa waxaa jiri doona dhafarka siyaarada iyadoo biri subax siyaarada lagu soo gabagabayn doono tasbiix iyo muxaadaraad diini ah saadaam cabdulle siyaad shabakatul mutaxaabuuna fillaah magaalada muqdisho ربنا ارحم شيخنا داود حاوي الكرم أرجو بيا لله يا ربي رضاك والنعم كان عفيفا صالحا برا فليس متهم له فضائل كثيرة كأشعر القنم